waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo warihiina Abshir Mandela ayaa faafahinta warkaasi Baydhabo inooga soo diray. hay-adda shaqaalaha adduunka ILO ayaa maanta tababar u furtay dadka Ritaaniiska ee iyagu dib ugu soo laabtay dalka kana yimid dalalka Yemen iyo Kenya kuwaasoo loo tababarayo siday u shaqaysan lahaayeen ugana qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska wadooyinka magaalada Baydhabo. furitaanka tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo waxaana ujeedada seminaarkan halkaasi ka sheegay madaxa hay-adda ILO koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Cabdi Isaaq. مشروع كانوا حتى منتجيك هذا الشيء من كهين ويبقى مشروع أو durable solution ويبقى حلقة وارا يلي حلقة وارا أو حوتيك لأن ترجعي وحوتيك لأن سيدي ويبقى معنا دلالة من اللي دجاج لأن يحكي دجاج كمدرس يسكت ويبقى معناها قوي تبحث كنا قدي ويبقى برشيدي يعني البرنامج كم فايدة سون حتى أنت تتكلم وضع قدينا تتوي كوكوين ملاراي ما تتوي كوكوين ملاراي dad oo qaxootiga dad oo barakacayaalka IDP da lankasay iyo dad oo baybo bulshada ku daray ya kulay meelay ku qoobin mashruucu madan way ku hadalay durable solution ka ama mashruucu xalqo waa oo dibudijinta qaxootiga lanka targali way baa mashruuc oo kulay dareero doona muddo sanad ah laakiin way baa macnaha qayb ku qoobin qaybtan ku reeyay way baa qaybta oo economic integration laro qaybta economic integration ko way yamel raay ina dadka la bara xirfad iyo ka shaqeysana la bara waan way ku faa'iideysay hata una slowna barnaamijkaas hay meel raay oo company galero MMC Modern Management Company oo way baa macnaha kulay mardow iyo dahfasho Baydhabo leeyahay soo bi mashruuc tababaradana hatana dareeran iyo way ku qayb qaaday 720 qof 720 qof iyo tababarada furlay tababaradii yoona way ku kooban yihiin meel raay in xirfad qofka la bara maadada ganacsiga la bara 4 bilood dareero doona. sidoo kale mas'uuliyiintii ka socotay gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo oo kulanka ka hadlay ayaa u mahadceliyay hay-adda ILO iyo dawladda Japan oo iyadu taageerta hay-adda ILO. marka hoob ilaahay bisaan saasanin furini ee baan ka dhawaayay dunyada simaa dunyada gobolka ahna dunyada samafalka oo waltardoona isku weeray inuu ogaado marxaladda kulano iyaan qoy hay'adda Japan dawladda Japan ku bilaabo shaqada dunyada oo ILO tijarto أنا سومالي كساطو لما أنتوا إذا كمان قفتي والكتاي كو ولدوا هاي سلام خير لك السيدة كان ما سنتاري لكي أو ولا ما هدي بنوسنا هالسنة إذا كمان نران متذكر والبعض السمنان ما هو الجاني والبعض ما هو عاوي لكن كل ما يلي شيء أنا قلت أو إيه تعاوي أو شفنا الفايدة يستوي الفضائي والإلهي كلام السي تلبروا بين السي ستحبلوا بلاجو أنت تنسيتوا ولد السمنار كل كبير أنت ولا معنا ولا خينا intaasi kadib ayaa mid ka mid ah dadkii horay hay-adda ILO u siisay lacago shaqo abuur ah kana faa'iideystay barnaamijyada ILO oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wax badan isaga iyo qoyskiisu ay ka faa'iideen barnaamijyada ILO. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Royal TV, Baydhabo.